Tani dhimashadii hogaamiyihii hore ee Liibiya Muammar al-Qaddafi ee ku dhintay gacanta jabhadaha Liibiya bishii Oktoobar sanadii 2011 wax badan ayaa laga qoray oo laga hadlay taariikhdiisa hase yeeshee wax badan lagama sheegin arrinta la xiriirta ilaaladiisa haweenka ahaa ee la socon jiray marka uu safrayo. Wuxuu caan ku ahaa jacaylka haweenka isagoo guursaday 2 jeer, wuxuu lahaa 2 xaas, gabadh iyo boqolaal ilaaladiis oo dumar ah oo qoryo ku hubeysan. waxaa kaloo jiray kalkaaliso caafimaad oo reer Ukraine ah iyo dumar badan oo taageerayaal ah oo agtiisa taagnaa inta uu noolaa. xaaskiisii ugu horeysay waxay ahayd macallin iskuul, waxay kala tageen 6 bilood kadib guurkooda, waxayna isku dhaleen wiil la yiraahdo Maxamed. xaaskiisa labaad Safiya al-Qaddafi oo ah kalkaaliso caafimaad waxay u dhashay 7 carruur ah. si kastaba ha ahaatee dhammaan dumarkii ku hareereysnaa Qaddafi waxa ugu hadalhayn badnaa haweenka ilaalada u ah. ciidankiisa ilaalada oo ah haween iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa ka dhigay Qaddafi hogaamiye caan ka ah adduunka. sida la sheegay ilaaladiisa gaarka ah marka laga soo tago dumarnimadooda wuxuu ku xulin jiray inay yihiin bikro. intaa waxaa sii dheer waa inay ku dhaartaan inay naftooda ku bixiyaan ilaalinta Qaddafi oo ay habeen iyo maalinba la joogaan. ilaaladan la tababaray ayaa lahaa xirfad military, waxayna ku xil dheeraayeen adeegsiga hubka sida ay sheegeen warar kala duwan oo laga helay dibadda iyo gudaha Liibiya. majallada Huffington ayaa sheegtay in haweenku ay tahay in marka hore ay tababaro balaaran oo la xiriira militariga iyo hubka ay ka soo qaataan jaamacad gaar ah ka hor inta aan si rasmi ah loogu qaadan inay ka mid noqdaan ilaalada madaxweynaha. Qaddafi wuxuu ku fikiray inay muhiim tahay in la tababaro dumarka quruxda badan oo loo rogo dagaalyahano. haweenka waxaa loo xiriyay kabo soo jiidasho leh oo kuwa ciribta dhaadheer, taas oo la sheegay inay ka soo horjeedo shuruucda dal haweenkiisu xirtaan dhar islaami ah, waxayna taas horseeday inay dad badan dhaliilaan. ilaalada Qaddafi waxay la jaan qaadeen xukunkiisa, wuxuu isticmaalay fikirkiisa ku wajahan inay ilaaladiisa noqdaan haween. si kastaba ahaatee markii dambe arrin naxdin leh ayay soo bandhigeen qaar ka mid ah haweenkii ciidanka ahaa iyagoo sheegay in Qaddafi uu kuufsan jiray oo uu dhibaateyn jiray. booqashadii Qaddafi ee Talyaaniga sanadkii 2009 waxay qabsatay bogga hore ee warbaahinta kadib markii uu casuumaad ka helay 500 oo gabdhood oo qurux badan oo Talyaani ah, kuwaas oo casho sharaf ugu sameeyay qasriga uu ku sugnaa hogaamiyahaas. waxaa la sheegay inuu munaasabadaas u adeegsaday inuu gabdhaha ka dhaadhiciyo inay soo galaan diinta Islaamka, isla markaana uu siiyay nuqul ka mid ah buuggiisa cagaarnaa. warbixino markii dambe soo baxay ayaa sheegayay in ilaaladii hore ay sheegeen in Qaddafi iyo wiilashiisa ay kufsadeen oo ay ku xadgudbeen. Siham Sirqewa oo ku xil dheer cilmi nafsiga oo degan Benghazi ayaa ururisay macluumaad loo adeegsaday maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC oo baartay dambiyada dagaal ee Qaddafi iyo xulufadiisa. lama oga tirada saxda ah ee ilaaladii Qaddafi, laakiin ilaa 400 oo haween ayaa soo xaadiray xarunta Siham, waxayna la safartay 30 haween oo ka mid ah ilaaladiisii. Sirqewa ayaa sidoo kale baaritaan ku sameysay eedeymaha sheegay in xoogagii Qaddafi ay kufsadeen haweenka intii lagu guda jiray colaadda ka bilaabatay dalkaasi, taasoo keentay in la rido dowladdiisii kadibna la dilo hogaamiyahaas awoodda badnaa. haweenka qaar ayaa soo baxay iyagoo sheegay inay hal mar kufsadeen 20 askari. kiisaska waxaa ka mid ah gabadh qiyaastii 18 jir ah oo sheegtay in lagu kufsaday aabeed hortiis. waxay ku celcelinaysay inay aabeed u sheegtay inuusan eegin iyada ayay tiri Sirqewa. dhibanaasha qaarkood ayaa isdilay ama ku fikiray inay isdilaan.